بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا ولا شرفت الله مال والبا أدوني كجوكتان خير إيه بش بالواقع النعمة فإذن رجينا يا وأنتم حدونا يا إن أنكهر مرة أرين آد مهمسا dadka inta badan aysan wada fahansaneyn ama ay fahansan yihiin balse laakiin muhiimad xoogan aysan siinin. Qur'aanka Kariimka in la xifdiyo waxaa ka sii muhiimsan in yar aad ka barato balse macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo fasiraadiisa aad garanayso. maxaa yeelay Qur'aanka Kariimka Ilaahay baa noo soo dejiyay waana middan hagayso oo aan ay tahay midna hogaaminayso inaan raacno oo aan ku dhagna ay tahay. waana shay aad u muhiim ah. taas macnaheed kama dhigna Qur'aanka ha xifdin, Qur'aanka ha dhammaynin oo ha xifdin ku dhihi maayo. Qur'aanka xifdi oo dhammeey dhowr mar muraajac ku samey ku celceli dhowr mar dhammeey bas laakiin muhiimadda waxa weeyaan tafsiirka fasiraadda Qur'aanka wax badan bay iftiininaysaa. Qur'aanka macaanadiisa, Qur'aanka quruxdiisa, Qur'aanka maamulkiisa iyo nafsadaada saad u maamuli lahayd oo wadada toosan u sii raaci lahayd baa halkaas kaaga soo baxaya. marka Qur'aanka fasiraadiisa aan ku dadaalno waa waajibna saaran. dunida waa maalmo kooban inta la joogayo, waa ayaaman macduudaad. marka aan ka faa'iidaysano in aan Qur'aanka xifdino oo aan barano tafsiirkiisa iyo fasiraadiisana aan ku dadaalno insha allahu tacaala. waa arrin aad u fudud haddii xooga aan saarnaan u jeysano insha allahu tacaala. intan mid kale barnaamijka maraajilma intaan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. like, share, subscribe ha iga iloobin. allah idin barakeeyo. wabillahi tawfiiq.